بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا مركل ولاشن زينب halkan iga daamanaysa Zainab tan beauty meel joogtaan waxa idin rajaynaynaa farxad iyo bashbash iyo caafimaad welcome back kusoo dhawaada markale iyo barnaamijkeeni dhaqaalaha gabdhihii kasoo faa'iideen Allah ni barakeeyo gabdhihii nagu cusuban iyo guri cusuban iyo dhaqaale cusuban hadda noo soo qorteen waxaan leenahay intii talade aan siini karno baan dhahayna inigana xagga waa commentiga waa intaas ay maaragtay iniga faa'iidaan insha Allah bidnillah kareem barnaamijkan sameeyni jiray dhaqaalaha baan waxoogaa hakiyay oo routine iyo waxyaalo kale iyo dhiirigelin kale baan ku hakiyay soo gabdhihii way ka soo faa'iideen falcilintoodiiba maaban arkin luuqba lagu soo shubo anigi maaba furayba waa kii aan fasax ku maqnaay waa markaan imaadan waxaan hooshii maaragtay guriga is dul saaran baaban ka dhamaani weeye waxbarashadii waa maxay dhaqaalo gabdho badan baa is weydiiyana markii dhaqaalaha barnaamijka dhaqaalaha uu soo galo ama maaragtay TV ha ka soo galo ama sidan oo kale gabdho walaalahaada YouTuber ha ku sheegaan mar walba ma is weydiisaa sidii aniga maaragtay aan aqriyay waa maxay dhaqaalaha la iga rabo waa maxay soo anigu guriga hooyaday markaan joogay sidaan maaragtay cundada u karin jiray sidaan guriga u maamuli jiray miyaan markaan liisoo gursadana aan u maamulaya mase wax kala ka bedelan hoosho ma yara su'aal qatar ali soo weydiiyay walaala war intaan ku sheego on kow hadalka maaragtay meesha dhow ama u sahlan aan kaaga bilaabo guriga hooyada markaa joogtay mas'uuliyadda adiga kuma saarneena kow hooyadaada bay saarneed iyo aabahaada waxa laga yaabaa inuu soo shaqayn jiray hooyadana ay guriga joogtay oo guriga ay ka shaqayn jirtay oo nolol maalmeed kale ay ka sii raadinaysay sida inay maaragtay cilaanka qasto ay maaragtay beledka iyo jaarka iyo ka iibis taas adi maadan ogeen hadaa arki jirta xataa dankuuma aheeno hadafkaada wuxuu ahay inuu hooyadaada un caamiso oo waxbarashadaada iyo maaragtay asxaabtaada iyo socodkaada iyo dibaashaalkaada taasiba adi dantaada abaheelay hirrif jigni ma aroosayso guriga ma lagu keenayo guriga mas'uuliyadii dhaneed baa lagu saaray horaantina waxay ahayd hooyadaada ay mas'uuliyadii saarneed laakiin adi kalkaaliye iyo caawitaan leh guriga ka ahayd laakiin waxa kale hooyadaada mas'uuliyadii saarneed iyo aabahaada abaheelay marka waaga hadda ku soo bariyaya marka dhaqaalaha aan ka hadlayna ayaa taas ama ahan dhaqaalaha marka guriga hooyadaada joogtay waxba ma kala ogeen marka guriga hooyadaada joogto waa cunaysa waa cabaysa weelasha la dhaqo iyo guriga la xaaqo iyo waxa la mermeero dharkaas iyo waxa mooyaane biilka cidda inaad adiga mas'uul ka saarneen waa la hubaa ma fahamtay hooyo iskoolkii baan lacag maasha Allah tabarakallah marka gabdhaha soo qorteen guri cusuban iyo dhaqaalaha sinteen ka bilaabna walaalo ninka raashin buu keenayaa maaragtay uu soo dejinayaa bilbil uu soo dejinayaa maaragtay nyaanyadii iyo adeegii amboogadii maalaha na gacanta buu iga diiwaay oo wuxuu dhahay bil isku keehay markaan suuqa aadan wax walba waa maaragtay qaali waxaan aad leedahay meel hala dhigo inteen u dhiga anaaba wax hooyada iyo aabahay walaaladay wax u dirsada ama la dhaqaalaha intee ka keenaa waa keeni maxaan ku dhahay waa keeni haddana keeni talada hadaa qaadatid tartiibkaada ma is wareerinaysid mid kale waxay isoo qortay walaalo hurdo la'aan baa igu dhacday stress baa igu dhacay marabo commentiyaasha maaragtay inaan inta soo dhigo oo maaragtay waxoogaa maaragtay shortkii iyo gabdhahan maaragtay inaan qadariyo markii WhatsApp oo kale lagu soo diro ama meelka lagu soo diro waxa soo raacaya kurkii qofkii markaa u saarnay wixii u saarnay wax walba soo raacaya marka ciwaankii wixii soo raacaya so inaan inta soo dhigo inaan ka hadlo baan doorbiday so marka walwal iyo waxaas oo dhanba intaad xaga iska dhigtid ma rabta inuu gurigaada ku qurux badnaado familkaada famil qurux badan ila reerkii hooyadaada abaaba ka soo tagay reer cusub ayaa maar ku bilowday iyo maar waji cusub ku bilowday wajiga koowaad waxa bayna gurigaada ka meel keentin wajiga labaad waxa bayna dhaqaalihii lagu dhiibay iyo aaminaadii uu ninka ku aaminayna ka soo meel keentid oo ka soo baxdana naag adag oo kartile oo waxaan ku dhahay waxeeda meel dhigan karto aan waxba loo sheegaynin inay noqotid warka dhabdeh insha Allah binilaakin sidee baa ku noqonaya marka koowaad waa inaad qof kalsooni dhab ah haysatid waay kalsoonida isku qabtid waa inay 100% ay ahaataa marka labaadna waa inaad ahaatid qof feerajigan
feerjigo now ya fariid wayna ahaatid naag fariid ah yaa oo ficid corona bayna noqotid ala dhahay ma fahantay maamaada waxay fariid ficid corona la dhaha waa inaa noqotid marka saddexaadna waa inaa welwelka iyo warbahaarka badan iska kala yareyso hurdo fiican oo 8 saacadood waa inaa hurdid maskaxda markay hurdo bay wax keentaa maskaxda hadday mashquulsan tahayna wax maba keento wax meel dhig ma keento maala hore gabarka arkaya tiktok leedahay ani maaba shilin aruurin karaa ay dhahday ani maaba shilin daacadnimo u hadlays ani maaba shilin aruurin karaa ay dhahday shilinka aan meel dhigo waxay dhahday iyo kii isoo ahaayo markaa dib iga soo galabo waxaan kusii fikiray dhahday kii intee marin doontaa shilinkii intee marin doontaa marka waa run dad waxaa jirtaa aaman waxbaba maara meel dhigi jirin si walbandoo samee aan wax aruurinka sababtaasna ma taqaanaa kalsoonidii dhanaa ku baaba'day wax meel dhigo beriya u baxsanee dhan aa kaa maqan ma fahantay waa inaad wax meel dhigatid marka lagu leeyahay war aday ku anficee oo caruurtaaday anficee oo haddaa guri cusuban leedahayna waxa dambe caruurta dambe aad dhali doontay ku anficee war walaaladaad iyo qaraabada maanta daa lagala soo qaylay xaaji wax isii ma dhehaysid waxaada waa haysataa tigidka waa goosan kartaa waa ordi kartaa hooyadaada waa soo booqan kartaa familkaada waa soo booqani kartaa haddii hadda cusuban tahay baby macjugta intay caruur imaanin war waxaada meel dhigo hooy fadhiga ka kacee waxaada meel dhigo dadka maaragtay caruurada haystaan hooyo bilaaran oo intaasoo sano maaragtay guur laheedna ayadaa maaragtay khibrad iyo experiment badan usii kordhaya more aad sanad kuu kordho experimentkaada kor u kacaya waxaan ka badaa kasoo qaadba hal sano aad maaragtay guri sanad leedahay experimentka waxoogaa maaragtay waa daciif oo hadbay bay ku bilaabanaysaa 2 sano 3 sano 4 sano 5 sano ilaa 6 sano ka gaarayso hirig ah ku jirtaa hirig maxaa la dhahaa marka hirig waxaa la dhahaa walaac iyo warbahaar iyo sheekada ama wax qaladay ee reerkana u imaatay ama wax ka sheegaan haadaasaa ku jirtaa wax aad tahay ba malahan ma fahantay intaasna haday ciyaal ka imaadaan ama caruur maaragtay baby ka heshana waxaa la dhihi jiray waa ki iska waal wixii la dhihi jiray waa adiga dhan waa isku dhex qasan tahay meel wax ka bilaawday iyo indhaha googoynay martay ku soo socod loogu dhawo adiga dhan wax qalqala kugu jira ma fahantay taas dhaqaalaha ayay maaragtay saameyn bilaaran kugu yeelanaysa iyo qoyska iyo quruxda iyo adiga naftirka nashaadkaadiiba maaragtay wax badan kaa qaldanaana sidee bay maaragtay koo horta wax walbo dunidan yaalla waxa kaaga fiican ama kaaga wanaagsan inaa heshid waxaasoo dunida waxaa kaaga fiican inaa heshid caafimaad waduu ilaahay ku dhammaystira caafimaadkaada alxamdulilah marka labaad waa inaadu maaragta dhaqaale wax weyn oo maaragtay hanti badan taajirnimana aan ahayn normal dhaqaalaha hadda ku yaal alxamdulilah haddaa markaas aad maaragtay raadinayso normal dhaqaale hadda raadinaysana ilaahay ku fududay haddaad heshona maaragtay ku shukur celi ilaahaygi ku siiyey oo ugu mahad celi wax yar haddaa haysatana sadaqadaada ka tuuro haddaa waysana niyadda sadaqada waa ka baxdaaba haddaa wax niyeysato oona awoodi karin sadaqay kuu tahay alla ma fahantay so maasha allah tabar xalgee baa ka bilaabay marka sheekada u soo laabano gurku cusuban iyo guriga cusuban allah u barakeeyo dhaqaalaha waxaad ka bilaabaysaa yaanyada waa soo kiilaysanaysaa khudaarto dhan wixii lagu dhigay adiga amboogada macal hilibka waa soo kiilaysanaysaa frinjeeri haddaa qabto frinjeeriga gelishanaysaa haddaaba frinjeeri haddaa meel aad frinjeeri sidii miyiga oo kale aan haysanin frinjeeri aad joogtona waxaa samaysanaysaa odkac baa ka dhiganaysa odkaca kama halaabo ma fahantay wax walbo oo dhaco in la farfareeyo maana odkaca ma halaabo odkac baad samaysanaysaa hal neef ma baadiyi igu doondhahaysa haddaa baadiyi joogtana way wanaagsan tahayba hal neef baa dhac siisanaysaa waa kalankalanaysaa waa maan odkaca ka dhiganaysaa so wax walbo dalacaada diyaar abaay maxaa ku waale ilmihii baa joogtaayo iyo hilibkii iyo waxaa maalin walba kabaan ma helayside hilibkaakaas ay ku muddo 4 bilood isku hayni kartaa ma fahantay maalin dalac bilaash maalin hilib waayo dhaqaalahaada kugu filnaana hadhowti $50 $25 meelaa dhigane maxaa la jira $25 kalena isku maareyne ma fahantay $5 meelaa dhigay 25 kalena keed bay ku ahaanayaan oo kala maaragtay maba u dhawaanaysid wax doonto hadduu dhac naftaada hiri ka dhawaanaysid waayo taas waa keed adig ku yaalo oo familka dhan oo guriga wixii ku nool oo dhan u yaala 25taas ma fahantay 5taas kale adeeg ku qaasta haddii familkaada wax kaaga imaado haddii maaragtay
adiga naftirkaa jabi u baahato fasax iyo meel inaa rabto aado $5 aad aruurinaysa oo maaragtay bil walbo aa meel dhiganaysa iyo ku anfacaysaa ma fahante xaajiyo wax keen iyo maaragtay intaasaan ku siinaya maxaa meel u dhigan waysay markii dambe khilaafaaba imaanaya halkiiaba laga yaabaa wax weydiismadii aa weydiisanaysa in reerkaada dhan kaaga burburo inta taa gabaray kuu dhici lahayd waxaa wanaagsan waxaad ku siiyey inaad meel dhigato haddaa adig shaqaysanaysidna waa inaad maskaxdaada iyo caqligaada dib u ceshatidoo waxaada aa meel dhigatid yaa ku tirsan tahay waa ilaahay kasakow yaa adig ku tirsan tahay ma fahante ninka hadduu kuu shaqeeyo famil buu leeyahay qaraawo buu leeyahay ehel buu leeyahay adiga kelix meel kuuma joogo ma fahante wixiisoo dhan marka adiga kelix maanta dhan inuu ku biilo ma ahan famil badan hadduu ka dhashay waxaasoo dhan usoo tuuranayaan marka adiga yaa kuu maqan caruurtaa dhashayna yaa u maqan hooyada maanta la raadina kale yaabay waa adig waa inaa indhaha furtid ma fahante gurigaada cusuban imaareyntiisa iyo wax walbo adaa lagaa sugaya ninka uu soo shaqeynaa 24 saac banaanka ku maq markuu imaado waxay hayso ku leeyahay maxaa haysaa marka hadday baahibelay kaa daynsatay oo tii kale wax u dhiibtay naaga hadday lacagta kaa daynsadaan haddana kuu siinaynin baa jirtaa say gabadha ii soo qorto waxay abaayo marka bishii lacagta la siiyo gabar oo maaragtay waxaan maaragtay darisaanaaba idhawaaba ii deemi bisha markuu ninkayga imaado aan ku siinayaa jaf lacagta saasay ku maqan tahay mar dambena in lagu soo celiya ha ka yaabinay dhaade marka dambe waxay noqonaysaa kaali idil aan intay ka keena adaa isiisa shalay maanaha ku qasbe taasna dhaqaalihii bay imaata haddana adiga wax meel dhigaa ku lahaaye adiga dhaqaalahaada meel dhigaa ku lahaaye abaa hiblaya u deemiye haddaa u deemisay ku keewaasa ka samar laakiin waxaa la dhahay dadow barasho geelana rarasho ayaa la dhahay ma fahanta maamahada haddaan qaldima aqaane ani waa iskuma fiicnina maamahade so dadow barasho geelana rarashaa la dhahay ma fahantay haddii aad barato shalay maanta maxaa ugu noqonee maanta maxaa ugu deemine shalay bay kuu keeni weysee maanta waaya ugu deemine tii kaa tagtana sadaqa ka dhigo oo waxba niyadaha ugu haysan aniga hor dabeecadeydaba saasa qof hadda intaan wax siiyo wuu iga daynsado uu soo istaago oo maalmo badan iska kayda wareego daralla baan u cafiyaayo aakhira bay i jiraysaa maba kasii daba laalaadiba sidii maaragtay maxaa la daqsigii camal haddaan mar baratay mar labaad ka feeri jignaaw taas waxay kuu noqonaysaa tusaale iyo digniin ma fahantay mar dambe ma aaminaysay soomaa qofka waad kasii laaban laakiin maraan siiye mar labaadaas siinay mar saddexaadaas siinay hadda waa dhacanta adaa dhacan gabadha hadday wax wayso way dhaqaaqaysaa ninka uguma dul qaadanayso ma fahante dhaqaale hadday wayso ninka uguma dul qaadanayso dhaqaalihii markuu siiyana meel ma dhiganayso dhaliishaas ayaa leedihiin ma fahante dhaqaale hadduu ku siiyana meel dhigo iyo wax meel samayso ma keenaysid haye kan ragga si kugu jeclaanaa marka ragga Soomaaliyeed romantic ma ahan ragga Soomaaliyeed saan ma ahan baan dhahaynaa caloosha ku xanuujinaa kuta akhbaar degdeg baaba yimaane anoo waxaan arkaa kuta yaa daasadihii meermeeraya oo dhowtina aan daasadii ku korbaroorana dhaa looga baay intii ku jirta baa dhamaatay marka dhibaatadaas horta way jirtaa horta problem family intuu kaaga imaado haddana aan maaragtay wixii dee aad maaragtay familkaada u quurto way jirtaa laakiin wixii familkaada waxaan ku dhahay war $50 hadduu kusoo galo waxaan ku dhahay $5 familkaada u dhig meel sida hadhowti maaragtay waxa adigi iyo maaragtay caruurtaada aad meel u dhigatay aad ooga dhexgelin ma fahantay $5 meel dhig adaa arki doontaa waxay noqoto war $5 haddaad 30 beri aad ku dhufato meeqay noqonay totalee maanta la taagan yahay bilaab adaa arki doontaa waxay kuu noqonayso ma fahantay marka mar walbo aniga waxaan ka sheekeynaa dumarkeena Soomaaliyeed waxaan ka sheekeynaa guurkiiba sida noqday wax la guursanayo ma lahan faarax Soomaali saan waaye magacaas hataa loo baxsaday wixiisa waxaada iyo wixiisana maaragtay ina la kala qaqarsado meel wax la kala dhigto oo maaragtay gurigii kuma wanaagsano reerkiina ku burburaya ma fahantay ninkaada maaragtay sidii aad oo la macaabil lahayd adaa garanay ilaa marka hore adaa guursatay maana hadduu kugu xumaado iyo hadduu ku wanaagsanaado labadaba waa maaragtay waa khayr ma fahantay hadduu ku xumaadana u ducee mar walba sidoo ilaahay maaragtay uu soo wanaajiyo uu wanaagaadii hore iyo ku soo celiyo so mar walba waxa wanaagsan intii maaragtay isjiid leedahay labadiin isjiid leedahay inuu mid tanaazulo uu u tanaazulo sidii horumarkii guusha iyo guriga uu maaragtay ku hanan lahaa marka maanta waxaan leenahay wax badan ina faa'iideena u maleynaa
intaan video cusub iskula kulmayna sidaas iyo ammaana la assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u soconaa 30,000 wax yar nooga dhiman hadafkeena waxaa waye inaan 30,000 gaarno iyo wax ka badan insha Allah waxaan rajaynayaa inaad maaragtay ina gaarsiini doontiin intaan video cusub iskula kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fi amaanillah